bilowga filimka waxaa arkeena haweenaydan saaxirada ah waxay bilaabaysaa in ay afduubato boqorkii ka talin jiray magaaladan. Sidoo kale waxay sixirtay dhammaan dadkii ku noolaa boqortooyada iyadoo isticmaalaysa sixirkeeda. Waxaana loo sheegayaa in boqorka dhalashadiisa ay ka dhiman tahay kaliya 3 maalmood. Sidaas darteed boqorku wuxuu go'aansaday in loo sameeyo cunto qaas ah. Dhinaca kale cunto kariye lagu magacaabo Roosiyo waxa uu bilaabay in uu boqorka u kariyo cunto uu weligiis cunin boqorka taas oo qaas ah. Laakiin qayb ka mid ah macmacaanka waxay bilaabeen in ay socdaan oo ay sixirka u qaybiyaan dhammaan cuntada kale. Waxaana ogaanaynaa in la sixray cuntada. Dhinaca kale baastadii boqorka loo diyaariyay waxay bilaabaysaa in ay noqoto sida wax nool. Waxayna soo weeraraysaa cunto kariyihii Rosario iyo ninkii la shaqaynayay. Sidoo kale waxay xirxiraysaa boqorkii waxayna bilowday in ay afduubato boqorka. Daqiiqado kadib waxa meesha imaaday ilaaladii boqorka laakiin nasiib xumo waxay arkeen in la afduubtay boqorkoodii. Dhinaca kale ra'iisul wasaaraha waxaa loo sheegay in la afduubtay boqorkii isla markiina wuxuu ciidamadiisa ku amray in ay u tagaan hay'ad lagu magacaabo SMCA. Hay'adan waxay ku shaqaysan jireen sixirka wuxuuna aaminsanaa ra'iisul wasaaraha in ay soo celin doonaan ka Kiridal oo ka tirsanayd hay'adda. Waxa ay ka bilowday in ay baaritaan ku samayso sixiroole lagu magacaabo Serkus maadaama ay ka shakisay asaga sixiroolahan. Waxa uu haweenayda ku qancinayay in uusan afduuban boqorka. Sidoo kale isla markiiba waxa ku soo jeestay gabadhii Kiridal ahayd. Waxa uuna bilaabay in uu adeegsado ciidamadiisa laakiin waxay bilowday in ay iska celiso ciidamada iyadoo isticmaalaysa awoodeeda sixirka. Sidoo kale Kiridal waxay ogaatay in Serkus uu soo afduubay xayawaano aad u badan oo ay ka mid tahay gabar maanyo. Isla markiina waxay bilowday in ay siidayso gabar maanyada iyo dhammaan xayawaanada kale. Dhinaca kale gabar maanyada oo lagu magacaabo Alita waxay bilowday in Kiridal ay hadiyad ahaan ay u siiso katiinad. Kadibna waxay bilowday in ay ku noqoto badda. Dhinaca kale haweenaydii ugu saraysay hay'adda waxay u timi ra'iisul wasaaraha waxayna u sheegtay in ay sameeyeen baaritaan balse nasiib xumo ay awood u yeelan waayeen in ay soo helaan boqorka. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu haweenayda u sheegay in ay raadiso wiil lagu magacaabo Hensel oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee sixirka. Wuxuu u sheegay Hensel in uu hadda ka hor awood u yeeshay in uu soo celiyo taalada boqorka taas oo la xaday. Haweenaydu waxay ra'iisul wasaaraha u sheegtay in Hensel uu sixirka aqoon u lahayn. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu haweenayda u sheegay haddii ay soo celiso boqorka in uu siin doono abaalmarin. Dhinaca kale waxaana la tusayaa xaflad ka dhacaysa meel aad u qurux badan. Waxaana nala tusayaa Hensel oo dadka tusaya qayb ka mid ah noocyada kala duwan ee sixirka. Dadka waxa la yaab ku noqotay ficilada uu sameynayo Hensel. Ugu dambeyn Hensel wuxuu dadka u sheegay in uu hayo daaweynaysa xanuun kasta. Dadkii ka soo qayb galay xafladda waxay bilaabeen in ay Hensel siiyaan lacag aad u badan. wax yar kadib waxa u timid haweeney maskiin ah waxayna u sheegtay in uu xanuunsanayo ilmihii ay dhashay. Sidoo kalena waxay ka codsatay in uu daweeyo ilmaha. Hensel wuxuu haweeneyda siiyay lacag wuxuuna u sheegay in ilmaheeda ay u geyso dhaqaatiirta in muddo ah kadib. Hensel iyo walaashii Kiridal waxa u yeertay haweeneydii ugu saraysay hay'adda waxayna u sheegtay in 3 beri ka hor la waayay boqorka. Sidoo kale waxay labadooda u sheegtay in ay raadiyaan boqorka. Intaas kadib Kiridal waxay ku xanaqaysaa walaalkeeda waxayna u sheegtay in uusan sixirka waxna uu ka aqoon beena uu u sheego dadka. Sidoo kalena dadkana ka fiyaamo lacagahooda. Dhinaca kale waxa arkeena iyadoo haweeneyda u sheegaysa in haddii ay boqorka soo helaan la sii doono abaalmarin. Intaas kadib labadii walaalaha ahaa waxay ku farxeen hadalka haweeneyda. Intaas kadib waxay go'aansadeen in ay bilaabaan raadinta boqorka. wax yar la dib waxay soo galeen laabka lagu sameeyo sixirka waxayna bilaabeen in ay mid u fiiriyaan dhammaan qalabkii yaalay laabka. meesha waxaa ku soo dhaweysay gabadhan oo lagu magacaabo Maria waxayna bilowday in ay u sharaxdo dhammaan qalabkii yaalay meesha iyo sida loo sameeyo sixirka. Sidoo kale Maria waxay Kiridal siisay okiyaale lagu ogaado sixirka. Sidoo kale waxay labadooda siisay saacado fududeynaysa in ay dhafaan darbi kasta oo ka hor imaada ayaka. Sidoo kale waxay siisay iftiin u sahlaya in aysan ka lumin meesha ay u socdaan. ugu dambeyn waxa ay labadooda siisay xog badan oo ku saabsan sixirka waxayna u sheegtay in ay raadiyaan boqorka. dhinaca kale waxaana la barayaa haweeney saaxirad ah oo lagu magacaabo Elfira. waxaa kaloo ogaanayna in haweeneydan ay sidoo kale u shaqeeyaan noocyada kala duwan ee cuntada sida keega iyo buskudka. waxaa kaloo ogaanayna in ay tahay qofta afduubatay boqorka kadib markii uu soo galay asoo kursi ku xiran. haweeneyda markii ay aragtay boqorka Said ayay u faraxday isla markiina waxay bilowday in boqorka ay ka darjiso buskudkaas oo ay sixir ku soo dartay. dhinaca kale waxaana la tusayaa labadii caruurta ahayd oo soo galay dhismo ku yaala meel ka mid ah magaalada. labada walaalaha waxay ka shakiyeen dhismaha in qof ku jiro waxayna bilaabeen in ay ka raadiyaan boqorka. si lama filaan ah waxay arkeen labo keeg ah oo wada buskud aad u badan. isla markiina waxay aamineen in cidda samaysay labadan keega ee shaqaynaya ay yihiin dadka afduubtay boqorka. isla markiina Hensel wuxuu bilaabay in uu yimaado labadii keega ahaa. sidoo kalena uu la hadlo asagoo la hadlaya waxa meesha imaaday ay aad u weyn. wuxuuna bilaabay in uu weeraro Hensel eygii iyo wiilkii ayagoo isbursanaya. waxay bilaabeen soo in ay daadiyaan dhammaan cuntadii taalay meesha. sidoo kale cuntadii waxay bilaabtay in ay ku dhex qasanto. isla markiiba labadii walaalaha ahaa waxay noqdeen kuwa aad u yar. sidoo kale eyguna wuxuu noqday mid aad u yar. Hensel waxaa la yaab ku noqotay markii uu arkay walaashiis intay la ekaatay maadaama ay aad u yaraatay. intaas kadib Kiridal waxay isku fiirisay muraayada. sidoo kale waxaa la yaab ku noqotay isbeddelka ku dhacay jirkeeda maadaama ay noqotay ilmo aad u yar. isla markiiba waxay bilowday in ay walaalkeed ku xanaaqdo. sidoo kalena ay ku eedeyso maadaama uu asaga ka dambeeyay dhibaatadan ku dhacday labadooda ayagoo isdagalaya. waxa meesha imaanaya dadkii guriga iska lahayna. taas kadib labadii walaalaha ahaa waxay bilaabeen in ay la soo cararaan naftooda. sidoo kalena ayagu wuxuu bilaabay in uu soo raaco. intaas kadib labadii walaalaha ahaa waxay isku raaceen in ay u tagaan haweeney saaxirad ah oo lagu magacaabo Baabayaaga. waxayna doonayeen in ay ku soo celiso sidoodii hore. labada caruurta ah waxay soo kaxaysteen baaskiil. ugu dambeynna waxay imaadeen gurigii ay ku nooleed saaxirada. markii ay albaabka soo istaageen waxaa soo dhaweysay haweeneydii Baabayaaga ahayd. isla markiina labadii walaalaha ahaa waxay bilaabeen in ay u sharaxaan wax kasta oo ku dhacay. intaas kadib Baabayaaga waxay soo gelisay gurigeeda iyadoo u samaysay soo dhaweyn aad u qurux badan. halkaas waxaa ka arkeena in Baabayaaga ay tahay
haweeney wanaagsan sidoo kale waxay u samaysay cunto aad u fiican kuwaas oo weligood aysan cunin macaankeeda darteed isla markaana Kiriidal ayadoo cuntada cunaysa waxay soo qabsatay okiyaalaheeda ayadoo cuntada ku fiirinaysa laakiin waxay aragtay in cuntada ay sixirtay haweeneyda haddii ay cunaana aysan ka soo kacayn hurdada Kiriidal waxay si qarsoodi ah u soo kaxaysay walaalkeed waxayna u sheegtay in haweeneydu ay sixirtay cuntada intaas kadib labadii walaalaha ahaa waxay dareemeen cabsi waxayna bilaabeen in ay qorsheeyaan sidii ay uga bixi lahaayeen guriga maadaama ay ku jiraan khatar aad u weyn waxay kaloo bilaabeen in ay raadiyaan meel ay ka baxaan laakiin nasiib darro waxay kaloo ogaadeen daaqadaha iyo albaabada ay xirxirtay haweeneyda ugu dambeyn waxay keeneen fikrad ay uga bixi karaan meesha waxayna isticmaaleen saacadii ay siisay Maria waxayna ka baxeen saqafka sare ee guriga dhinaca kale waxa arkeen labadii keega ahaa oo u yimid haweeneydii iska lahayd ayagoo u sheegay in ay laba qof ay imaadeen gurigeeda kuwaas oo ka socda hay'adda SMCA isla markiina saaxiradii waxay samaysay keeg aad u weyn waxayna ku amartay in uu soo dilo labada carruurta ah ee Kiriidal iyo walaalkeed Hansel in muddo ah kadib ayagoo iska socda waxaa soo weeraray keegii weynaa asaga oo rabay in uu dilo labadooda laakiin waxay ku dadaaleen in naftooda ay ka badbaadiyaan keegan aadka u weyn waxayna bilaabeen in ay hadba dhinac u ordaan ugu dambeyn waxay ku sigteen in ay ka dhacaan buurta laakiin waxaa badbaadiyey eegii wax yar kadib waxay arkeen derbi aad u weyn waxayna aamineen in halkan ay tahay meeshii ay ku nooleed sixirooladii Elfira ahayd intaas kadib waxay bilaabeen in ay soo galaan gudaha derbiga ayagoo isticmaalaya saacadii ay wateen ugu dambeyn waxay heleen tareen u socday meeshii ay ku nooleed Elfira dhinaca kale dadaal dheer kadib waxay soo galeen meeshii lagu xiray boqorka isla markiiba waxay arkeen boqorka waxayna u sheegeen in halkan ay u imaadeen si ay u soo badbaadiyaan asaga boqorku wuxuu u sheegay in uusan garanaynin waxa ay ka sheekaynayaan wuxuuna sii watay cunistiisii buskudka dhinaca kale labada carruurta ah waxay ogaadeen in Elfira ay jeclaatay boqorka ayna doonayso in ay aroosto asaga wax yar kadib waxa meesha imaaday Elfira iyo ciidamadeeda waxayna bilaabeen in ay qabqabtaan labadii carruurta ahayd oo ay ku xiraan xabsikaas oo ah mid aad u kulul dadaal dheer kadib waxay bilaabeen qorsho ay uga soo bixi karaan xabsiga ayagoo isticmaalayo awoodooda ugu dambeynna waxay u soo baxeen dibadda intaas kadib waxay bilaabeen in ay qorsheeyaan qaabkii ay boqorka ku badbaadin lahaayeen si lama filaan ah waxay ogaadeen in uu soo dhow yahay dhiritaanka arooska u dhexeeya Elfira iyo boqorka isla markiina waxay go'aansadeen in ay boqorka ay ka badbaadiyaan haweeneydan sixiroolada ah balse nasiib xumo haweeneydu waxay bilowday in dhammaan dadka ay u qaybiso buskudkii ay sixirtay isla markiiba sixirkeedii wuxuu saameeyey dhammaan boqortooyada waxayna isku raaceen in Elfira ay tahay xaaska boqorka laakiin dhinaca kale labadii carruurta ahayd waxay bilaabeen in ay la dagaalamaan Elfira iyo ciidankeedii si ay u badbaadiyaan boqorka Elfira waxay afduubtay Hansel ayadoo Kiriidal u sheegtay in ay isdhiibto haddii kale ay dili doonto walaalkeed ka yar Kiriidal waxay bilowday in ay isdhiibto laakiin nasiib xumo haweeneydii waxay ku tuurtay Hansel dheri uu ku jiro bur dadaal dheer kadib waxay ku guuleysteen in ay banaanka uga soo baxaan burka sidoo kale waxay ku guuleysteen in dhammaan cuntooyinkii ay haweeneydu ay karisay ka saaraan sixirka halka sidoo kale ay ku guuleysteen in dhammaan magaalada iyo dadka ay ka saaraan sixirka intaas kadib waxaa la soo qabtay saaxiradii Elfira ahayd waxaana sidoo kale loo mahadceliyey hay'adda SMC iyo labadii walaalaha ahaa ee Kiriidal iyo Hansel muddo kadib gabadhii Maria ahayd waxay ku guuleysatay in samayso qalab waxayna awooday in ay labadii carruurta ahayd ay ku soo celiso sidoodii hore intaas kadib boqorka iyo ciidamadiisa waxay siiyeen Kiriidal siiyeen abaalmarin loo yaqaano The Best of Agenti sidoo kale waxaa Hansel la siiyey shahaado dhammaadka filimka waxaa arkeena in labada walaalaha ay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen haddii aad ka heshay muuqaalada aan idiin soo gudbiyo fadlan like iyo share muuqaalka sidoo kale subscribe iyo saar channelka mahadsanidin